waa idin salaamay dhammaan daawadayaal. Muuqaalkiina maantay waxaad ku arki doontaan guryaha ugu yaabka badan adduunka. Buundooyin loogu talagalay gawaarida oo laga duldhistay guryo ay ku nool yihiin dad iyo kuwooda ugu cariiriga badan. Guryo badan oo u wareegsanaya qaab aad la yaabi doontaan iyo guryo ku yaala badda dhexdeeda sida loogu nool yahay. Muuqaalkiina maantay waxaa ku arki doontaan waxyaabo badan, balse daawade intaanan u gudagelin muuqaalkiina waxaan kaa codsanayaa inaad inoo saarto subscribe-ta. Mahadsanid daawade waxaa laga yaabaa muuqaalkiina koowaad inaad aamin weyso ama saa la yaabto. Maxaa yeelay buurahan dhexdooda waxaa ku yaalo 10,000 guri. Guri walbana albaabkiisa waxaa ku aadan albaab kale halkii tilaabo. Yacni cariiriga heerkoo mara adiga naftirkiina waa dareemi kartaan. Saasay tahay bulshada waa iskala normaal oo waaba la haystaan noloshooda wayna ku qanacsan yihiin. Gawaarida waxay iska marayaan buundooyinkan hoostooda, laakiin waxaa ku nool bulsho dhan oona ka dhigatay hoy iyo ganacsi. Xitaa bulshada waxay la teesan tahay ilaa badda oo dhan, ayagoo bulshada kaga fogaanaya badda iyo biyahaba qoryo. Tuuladan sidaas dhan loogu nool yahay magaceeda waxaa la dhahaa Manila, waxayna ka tirsan tahay dalka Filibiin. Waxaa u dheer qashinka oo ka dhalan karta cudurro. Carruurta waxay la nool yihiin qashinka. Meeshan ayaa u gudbaynaa muuqaalkiina. Muuqaalkeena xiga guryahan ku yaala arka wadada dhexdooda. Waxaaba la yaabanahay sida looga seexdo guryahan, labada dhinacna ka warto wadada. Waa yaab. Gurigan kale xitaa wuxuu ku yaalaa wadada dhexdeeda. Waa dalka Shiinaha. Waxaa la sheegaa dadkii lahay inay diideen inay iska iibiyaan guryaha ooba doorteen inay iska maqlaan qeylada gawaarida. Daawade dadkan maraaxay ku jiraan mise waaba waali oo qeylo mar walba iska dhegeysato. Buundayar u ekahan waa gobol. Haa daawade waa gobol yar. Xitaa waxaa lagu tilmaamaa wadan magaciisana waxaa la dhahaa Siilaan. Waxaa soo helay markiisii hore dad British ah. Wuxuuna leeyahay madaxweyne, lacag, baasaboor. Daawade xitaa wuxuu leeyahay aqoonsiga dowladaha waaweynka lagu aqoonsado, calan u gooni ah. Waa wax aan la yaabi, waa buundo aan la yaabay. Mareykanka gobolka Alaska waxaa ku yaala hal dhismo ay ku nool yihiin 27 qoys oo kala nuuc ah. Daawade weliba waxay ka helayaan wax kasta ay u baahan yihiin. Hoolal wax kasta ay u baahan yihiin ee weliba banaanka ugu baahnaayeen aasaasiga wax kasta oo ah. Daawade muuqaalkeena xiga waa hoteelo ku yaala buuraha dhaadheer korkooda, kuwooda ugu qaalisan weliba. Waaba naxdin u dhimo markaaba buurtaan korto. Dadna lacag ayayba ku fangareynayaan. Weliba xaysay leeyihiin buuraha swimming poolyo dhaadheer meelaha fiinta buurta korkeeda ah. Waaba naxdin u dhimo, lacagtaadana ka dhimo wax ka dhex. Daawade keena xiga buundadan waxay ahayd markeedii hore mid ay maraan gawaarida, balse maantay waxay u tahay shacab weyne waayay meel ay seexdaan. maantana ayaga degan. Sunflower waa guri qadiimi ah, waxaana la dhisay sanadii 1935. Gurigana ujeedin wuxuu ku wareegsanayaa kushineetooyin qaab waliba isla eg ah. Waxaa jira guryo badan oo kadib la dhisay qaabkiisa oo kale walibana nuucsanaya, balse waa kii ugu horreeyay ee la dhiso nuuciisa oo kale waliba nuucsado gurigan. Daawade guryahan aad u jeedaan waxay u ruxmayaan qaab ee waliba inay dhici rabaan oo milaysiin, laakiin waa loogu talagalay maxaa yeelay meeshan waxaa ka dhaca dhulgariirada ugu badan. Sidaa darteed marka waxaa laga fogaanayaa inaysan saameynin dhulgariirka. maxaa ku soo kordhineedaadi? Kani waa hotel ku yaala bartamaha badda dhexdeeda, waliba waxaa u sii dheer inuu leeyahay gunta hoose, waliba aad ka dhex arki karto malayga. habeen iyo maalin qaabkaad u guraysato ayay ku xiran tahay. wuxuu leeyahay xitaa qayb kore aad isku qorxeen karto. hotel aaba la yaabo waaye kan. daawade anna waxaan rajeynayaa inaadna yaabtay. daawada hadday muuqaaladeena ku cajib geliyeen waxaan kaa codsanayaa inaad noo sii share garayso, subscribe-tan inoo saarto si aan u helno daawada adigoo kale u fiican. mahadsanid daawada.